kusoo dhawow qaraaxa tiyuub fadlan subscribe dheh waxaad ka helaysaa macluumaadkii ugu dambeeyay kubadda cagta iyo sheekooyin kale dhammaan asxaabta la socda janalka qaraaxa tiyuub waxaad kusoo dhawaataan wararkii ugu dambeeyay ee suuqa kala iibsiga ciyaartooyda Juventus ayaa aaminsan in ciyaaryahanka khadka dhexe ee kooxda Manchester United Paul Pogba ay dib ugu soo celin karaan Talyaaniga sidoo kale waxay doonaysaa Juventus inay iibiso Gonzalo Higuain oo 30 sano jira ciyaaryahankeeda khadka dhexe ee Milan Pjanic oo 28 sano jira iyo difaaca lagu magacaabo Daniel Rugani oo 24 sano jira iyo Mate Caldara oo 24 sano jira ayaa dhamaantoodii laga yaabaa inay ku xalliso qaybta dhaqaalaha ama financial fair play. Sunday Mirror ayaa warkaas warisay Manchester United ayaa dhanka kale bixin doonta Manchester United ayaa toddobaadkii 505,000 oo lacagta boonka ah siinaysa ciyaaryahanka lagu magacaabo Alexis Sanchez sidoo kale waxay doonayaan in la soo wareegaan Roberto Lewandowski oo 29 sano jira kaas oo laga yaabo inuu booska kula dagaalamo Sanchez. Real Madrid waxay doonaysaa Hazard inay iska dhaafto sababtoo ah waxay doonayaan hadii 200 oo milyan lacagta Hazard ay tahay inay iska tagaan maadaama ay san xidiga kale oo muhiim ah oo weerarka ciyaari kara sida Benzema, Isco iyo xidiga la yiraahdo Gareth Bale. Chelsea waxay diyaarinaysaa 30 milyan oo ay ku doonayso 27 sano jirka kooxda Arsenal qadka dhexe uga ciyaara Aaron Ramsey kaas oo laga yaabo markuu dhamaado heshiiskiisa inuu isaga dhaqaajiyo garoonka Emirates. Manchester United ayaa qorsheynaysa 35 milyan inay ku soo qaadato difaaca dambe ee kooxda Barcelona iyo xulka Colombia Yara Mina oo 23 sano jira. Borussia Dortmund ayaa doonaysa inay iibiso Christian Pulisic oo Chelsea, Liverpool, Real Madrid, Bayern Munich ay ku dagaalamayaan. Liverpool ayaa dhankeeda doonaysa inay iska iibiso goolhaye Divock Origi oo 26 sano jira kaas oo ay doonayso kooxda kubadda cagta ee Watford iyo kooxo kale oo ka dhisan Ingiriiska. Arsenal ayaa bartilmaameedsanaysa Steven Nzonzi oo 29 sano jira balse ciyaaryahankii hore ee Blackburn iyo Stoke qadka dhexe uga ciyaarayay sidoo kale Sevilla ku sugan ayaa laga yaabaa inuu ku biiro kooxda kubadda cagta ee Rome. Waad ku mahadsantahay daawashada videogan fadlan ha ilaawin like iyo share kadibna inaad subscribe mahadsanid.